waxaa hadda si toos ah khadka ugu jira maxamuud xuseen baarlaqaajo oo ka soo hadlaya cariga ingiriiska xuseen bal rajada doorashada soo socota falaqayn ku samee muddo dheer wad ku jirtay xaggan siyaasadda iyo arrimaha bulshada hadda doorashada waxay u weydiisay rajada doorashada soo socota kulmiye ceebtii ugu weynayd ayuu kala kulmaya waxa laga yaabaa intay heli jirteen ka hooseeya inuu helo wixidna ay heshay 3,000 4,000 meelaha waayo codadkii berigii dhaweeyay xildhibaanada watay sidaas natiijada doorashada ay ku keentay intaas xildhibaan laakiin imika tii madaxweynaha noqonaysa rekoorjabis bay noqonaysa wuxuu wadan ku qaadaya marka wadani baa baawrka leebaad leedahay maxamed nidaam horaba la dhicin horaba iska dhan cid gaarin buu gaaraya dadku waa wada wadani rajo xumo la kulantay garabeeshin fara badan bay arkeen siyaasadii dawladda dibadda arrimihii dibadda way xidhayiin waa sidaa loolanka nimanka wadani dhexdiisa ka jira shirkii golaha dhexe la qabsanayaaba ayaa ku jirtay miidiyaha sidaad u aragtaa taa waa dimuqraadiyadda dhigaysa in la soo loolamo in la ninba heer soo taago dhinaca kale waxaa jiray maxamuud xubno badan oo ka tirsanaa xisbiga kulmiye oo u soo digarogtay xisbiga wadani oo ka mid yihiin maxamed xaashi aragti inta leeg bataa iyada ka qabtaa rajada nolosha ay arkayaan halkay ku jirto rajada nolosha ay arkayaan kaasina wuxuu ahaa maxamuud xuseen baardhaqaaje oo ku sugan waddanka ingiriiska mar aanu khadka taleefanka